السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا قيمها يشرفت مدن وعالم كمال والبو كجوجتان يحل والبو يدين تهيبا وقتها هيدين وعنادو وايهنا هيدين سمادو وولالكين عبد الوهاب وإذن الله مالين كالي موقال أورله aad baad ugu mahadsantihiin tixgelinta qiimaha sharafta iyo karaamada ay aad noo muujisaan mar walba sida aad channelka u garab taagantiin aad baan idinkaga mahadcelinayaa inta dib inooga soo biirtayna way mahadsan tahay inta soo socota waynu soo dhaweyn doonaa inta hore ula joogtay fadhiyaweynta siriicaad dadka ku dhow lahaanshaha channelka ahna aad baan ugu mahadsantiin dhamaantiinba farxad iyo guul iyo baraaro ku noolaada insha Allah maanta waxaan muuqaalkan aan ka dhigan doonaa ama aan noo hayaa oo aan miiska wada saaran doonaa fanaanka weyn ee Idla Yare ee aabaha ah maanta Idla Yare waxaan uga hadlayno wax kala maaha Idla Yare sida inuu ognahayba marxalado aad u adag ayuu ku sugan yahay oo runtii haba ugu darnaata burada madaxa kaga taalo oo runtii dhibaatada ugu weyn ah waxa kale soo lamaaneeyo in uu sokor ku dhacday ama macaan sida aad u taqaanidba ama qof walba ay u taqaanba Soomaali maanta waa la isbartay oo meesha maanta la isaga garaabi lahaa gunta iyo lugaha ayaa lagu qabanayaa si aadan u garwaaqsan ama aad u horumar u sameeynin إلا وحنونسن yahay markii aan lahayn iyo hal loo gurmado iyo gurmad hal loo fadiyo markaan lahayn may dhaweyn ilaa iimaanta ay maalin dhaweytoole aad la arkay isagoo oo dhahayo ciyaalkiisa ama dardaaran ahaan ku siinayo ilaahay ayaa idinkaga tagay dad badan waxay ku leeyihiin xanuun ayuu nagu qabtay kuwa ayaa iska oysiinayo kuwa ayaa wax kala sameynaya kuwa ayaa wax aynan niyadooda ahayn sameynaya waqti xaadirkaasina ku beer la xawsanaya Soomaalida si ay views markaasi ay uga sameeyaan waxyaabaha la yaabka lahaa ee markaasi maalintaasi dhacday waan idin la wadaagi doonaa bal waxaan doonayaa isaga oo wiilkiisa ugu yar ciyaalka waqti la qaadanaya iyo waxyaabaha qaar oo kula qaadanaya iyo sida uu u dareensiinaynin inay xaaladiisa adag tahay ayaa marka ugu horeysa video ahaan soo daawan doonaa waan isku soo laaban doonaa ee bal daawasho wacan waagi adiga oo dhalay نوع عارف عبجت وقالي واحد برضه يصير صار عاناس نان الله وراك عبي ودم عيون مجد عيون مجد أبطأ اسمع فعلا إذا عنده عانا ما كنت ماذا أنا ما عبت اللي يجري أنا ما عبت صورك أنت قصة كنت مكران لا بام فرو يلا فرو يلا على علوم بيزنس وينها وقت اليوم أنا خلاص نقدر هذا ما أنت لك سحبك استقبل الجفاء الحمد لله ويلكي بواي ويل الجفاء أبارة ما شاء الله إلى إيجا مقابل كان بربابك حالنا sidaad soo wada daawateen Idle waxa uu ilmihiisa farxad ula sii qaadanaya si aysan u dareemin xanuunka markaasi isaga hayo oo ku kali noqdo waxa uu ilaalinayaa qalbiyadoodii maadaama ay yihiin ubaxada soo baxayo oo doonaya adduunka in ay iftiin u noqdaan waxa aad ogtihiin Idle in uu laba boos keligii ku jiro waa keligii ayaa laba boos ku jiro mar waa hooyo marna waa aabbo hooyada ciyaalka dhashay ma garanayo meel ay ku sugan tahay iyo in ay xumaan kaga maqan tahay iyo in ay saba adduunyada aysan joogin laakiin waxaan aragnaa mar walbana aan niyada ku haynaa Idle oo u cararayo ciyaalkiisa ilaa iimaanta taaga iyo tabarta ay soo dhigtay meesha aad wada arkaysaan waxyaabaha igula yaabka badnaa waxa kamid ahaa in mas'uul horay u soo maray safaaradda Soomaaliya inuu hadda ku noqday in kala ma aqaan waa Maxamed Cali America oo intuu u tagay ay su'aalayaan waxa ay su'aalayaan habka uu u dhacay iyo sababta qoraalkaasi keentay ayay su'aalayaan video ayay ka duubeen waxaana aaminsanahay in aysan dib dambe ugu soo laaban doonin waxaad ilaahay kaga baqdaan qofka ugu yar ee u duceeya waa qof wanaag u qabtay qofka labaadna waa qofkii isaga garab istaaga oo awood ahaan haduu wax awoodi karo ku garab istaaga si uu wax ugu qabto
dad badan oo waxaanu aragnaa lacag ku bixiyo si ay yacni qabiil ahaan isugu taageeraan waana aragnaa video live-yada la soo galo ee xagga TikTok ah inta qarashaad lagu bixiyo ama qofka libaaxyo loogu iibiyo inta ay la eg tahay maanta iidle waxa uu la jabayaa ama uu la dhibaatoonayaa xanuun xagga madaxa ka hayo oo aan dhammaan haddii aynu u kacno awoodi karayna in aan geena caalamka meesha ugu dambeyso maadaama ay maanta jiradiisa kaliya ku xiran tahay haddii dalka Jarmalka la geeyo kaliya waxaana awoodi karo marka runta isku sheegno 4 qof ilaa 5 qof oo si dhab u kaco ilaahay dartiisna u kaco laba shay buu rabaa inaan ogaado mar waxa ay tahay hadduu qof iidle qof Soomaaliyeed oo yahay dadkan malaayiinka ah ee Soomaalinimada kala jiitay ee maanta qabaa'il ahaan ku kala jiitay maxay u arki laayihiin iidle inay wax u qabtaan waxa kale oo aan doonayaa haddii uu qabiil yahayna reerka uu ka dhashay weynaanta iyo sheeganaya maxay u daawanayaan oo wax ay ugu qaban laayihiin mas'uuliyiintii dawladda ay xilka ka saarnaa dadkani may maxaa loo wada daawanayaa maxaa loo daawanayaa oo markii uu qoraal soo dhigo qoraal qalbigiisa ka soo go'ay marka uu soo dhigo maxaa beer la xawsi iyo waxyaabo aanan jirin niyadda maxaa loola imaanayaa oo wax loogu qaban laayahay run ahaantii iidle sida aynu ka wada warhayno dhammaanteenba aan ogsoonahay weligii iyo allihii ma ahan qof tuugsada dadka sida aynu ka ognaa iyo inta aan ka hayno xog ma ahayn qof dadka tuugsado sida aad ogeedeen waa uu shaqaysan jiray waa uu nala kaftami jiray waqtigiisa quruxda badanna waa uu nala qaadan jiray labada qofood ee waliba sida aadka ah aan u dhaliilay waxa ay tahay labada qof ee America ku sugan waa Maxamed Baristimool iyo ninka odaga ahaa ee Dalmaryare dadka aadka ugu dhow ayuu ka mid ahaayeen waliba waxa ay ahaayeen markii ay Nairobi yimaadaan qofka kaliya ee si fiican u soo dhaweyn jiray ama waqtigiisa inta ugu badan la qaadan jiray ee aanan tusi jirin in ay ka soo tageen Mareykan oo ay joogaan dal kale maanta sida fiidiyowgii oo kale ayay u daawanayaan ma arag iyagoo hal mar xitaa ka soo hadlayo maan arag iyagoo xitaa muujinayo in ay u diyaar yihiin in ay wax u qabtaan haddaba waxaynu cillad ku leenahay oo cilladeena ugu weyn ay tahay qofkeeni hal Baristimool u dhinto ayaa waxa la siinayaa amaba lagu aasaya 10 geela ama 20 geela oo qiimahooda aan ognahay inta uu la ekaan karo war intaad aqliga shaqaysiisaan haddii aad kici karaysaan u kaca haddii eedan awoodin oo qalbiyada ka wada dhimateen oo qalbiyadiina wada meyd ay yihiin oo baqayliin aad tihiin oo aadan waxba qaban karayna waxaad sameeysan oo kaliya u duceeya inta aad ku wiirsan lahaydeen inta aad iskaga dhigi lahaydeen qof dad yacni xanuunkiisa la dhibaatoonayo niyadda ku hayo waxaan idinkaga digayaa in aadan ku diganin digasho weeyaan hadda tan aan arkayno waa digasho waxa kale oo jirto madaxda maalintaasi u timid oo Maxamed Cali America waxaan ka sugi doonaa waxa uu qabto in uu isagana oo noqdo dadka meesha ay maraan waxaan si qaas ah aan ugu dirayaa baaq aan rajeynayaa inuu fiidiyowgaasna gaaro madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaan u sheegayaa adiga dadkan ballan qaaday adiga dadkan kafaaladooda qaaday wallahi oo billahi oo tallahi ilaahina adigoo kala xisaabtami doona haddii aad isleedahay laguma weydiinayo maalinta qiyaamaha haddii hal wariiri oo ugu dhinto si dayac ama dhibaato ah adiga ayaa ilaahay ku su'aali doona u kaca maskiinkan waxa aad u qaban karaysaan taagiina iyo tabartiina ay tahayna u qabta haloo kaco wixii la siin karo iyo wixii loo qaban karo maanta ibeelay idima lahan caafimaad ayuu u baahan yahay ilaahay ayaa hayo ilaahay ayaa ugu rajeynayna inuu caafimaad taamsiyo idinkana intaad u kacdaan wixii aad u aruurin kartaan qabaa'ilaba waad u aruurin jirteen haloo aruuriyo iidlaha la garab istaago iidlaha loo damqado iidla garab hala siiyo waxaan rajeynayaa muuqaalkeena inuu wax badan bedeli doono insha Allah idinkana u duceeyo walaalahayow fiidiyowgana la gareeya sina share gareeya biidnillaahi tacaala ina wax wada badan qaban ayaan rajeynayaa inta muuqaalkan mid xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanillah